السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي دمان لنيرتا كحرم بيج كان waxaan markaas rabaa maanta inaan su'aashani aan isla xalino aan markaa ku saabsan maadada cilmiga bulshada sidoo kale waa raadinta dhigta iyo loolka iyo aminti su'aashan isla fiirino hadii ay saacada magaalada Muqdisho ay tahay ay tilmaamayso 9 subaxnimo ama 3 saac subaxnimo soo saar saacada magaalada Hargeysa ee dhacda dhigta 44 bari waayahay halka waxaan isla garanay in markaasi nala diray saacada magaalada Hargeysa ee dhacda dhigta 44 bari waxaan haysanaa Muqdisho saacadeeda iyo dhigteeda Muqdisho dhigteeda marka hore waan iska naqaanaa oo Muqdisho waxaan leenahay waxa ay dhacdaa 45 bari saacadeedna waa Muqdisho timekeedna waxa waaye 9 oo subaxnimo am waayahay waxayna la diray Hargeysa oo dhacda dhigta 44 bari sidoo kale timekeedu waa maqan yahay okay Hargeysa time maqan Hargeysa saacadeeda la raba inaan ogaano markay halkaas ay marayso waxa taqaanaa qaacidooyinka loo isticmaalo aminta marka la raadinayo hadii magaalooyinka ay dhacaan bari iyo bari waxa taqaanaa in la kala gooyo dhigaha kadib lagu dhufto 4 wuxuu ku soo bacana markaasi aad ku shaqaysato waayahay halka aan markaasi ka maqaadno waxaan leenahay Hargeysa time waxa lagu helaa Hargeysa time waa Muqdisho dhigteedii oo ahayd 45 laga gooyay dhigta Hargeysa oo ah 44 waayahay halkaas markay marayso degree raaci markay halkaas ay marayso waxa leenahay waxa soo bixi doonta halkaasi 1 degree halkan degree ayaa markaasi waxaan sameyn doonaa waxaan ku dhufan doonaa 4 waayahay marka 4 aan ku dhufano hal 4 ku dhufo waxa caan ah oo soo laabanaysa 4 tan waxay markaasi u taagan tahay daqiiqad 4 daqiiqad waa micnaha halkani si kale marka loo dhigo wuxuu u dhigmaa 15 dhig oo micnaha Hargeysa Muqdisho waxa markaasi saacada marka dhigta ee wareegayso waxa markaasi 15 dhig ay markaasi 4 daqiiqaba ay wareegtaa sida buuga ku xusan marka 15 kan waxa markaasi u dhiganta 4 daqiiqo 4 daqiiqo ay markaasi kala koreeyaan Muqdisho Hargeysa waayahay hadii markaasi saacaduhu aan raadinayno hadana Muqdisho saacadeedii waa 9 subaxnimo waxaan ka goyn doonaa 4 daqiiqo waayahay halka marka ay marayso ka jar ahaan aan u isticmaali doonaa marka hore waxaan sameynaynaa halkan ka soo qaadayna intaan ku buuxinaynaa halkaas marka u dhigma 60 daqiiqo halkan waxa ku soo hari doonta 2 saac daqiiqadahan marka kala goyn doonaa macnaha halkan ka soo qaaday intaan ku daro halkaas wuxuu dhigmaa 60 daqiiqo halkii aan inta ka qaadayna maxaa ku soo harayo 2 oo marka 8 waayahay 60 aan ka gooyo marka 4 okay hal soo qaad inta ku dar 10 4 ka gooyo meeqa soo haraysa waa 6 halkan maxaa ku soo haraya 5 ta ii soo deji marka Hargeysa saacadeeda waxa ii soo baxday 2 saac iyo 56 subaxnimo in ayagana u tahay waayahay Allah marka halka ay marayso halka waxaan ku ogaanay saacadii magaalada Hargeysa mala dhacday ma fahamtay su'aasha qaabkay u dhigneed iyo qaabka warcelintii ugu dambeysay aan ku soo saarnay hadaba su'aal kale ma ku diraa mise waxa markaasi tixraacaysa qaabkan u shaqeeyay oo adiga su'aal kale sameysanaya hadii aan su'aal kale ku dirayo arabto inaan ku diro way la soo wadaagi kartaa oo qaadiya wali xitaa aadan fahmin fariin way soo diri kartaa WhatsApp-ka numberkayga waa markaasi idin sheegayo halka sare uu saaran yahay waa numberkaasi iska fudud marka way la soo hadli kartaa haduu alla idmo waa numberkaasi wixii markaasi kugu adkaada xisaab ha ahaato cilmi bulsho ha ahaado wuxuu rab ha ahaado Englishna sidoo kale maadada Englishka ayadana aad markaasi caawin zaid laga siin doono sidoo kale hadii ogeysiis yaraan ku raaciyo waxa aad markaasi si talansaale u socdo ka shaqeynta imtixaanka dawladda ee markaasi koonfur galbeed iyo sidoo kale kii gobolka Banaadir ah hadii markaasi aan inta sawiraqadoodii waa kuwan halkan yaala tani waa koonfur galbeed maadadana waa Soomaali marka ka shaqeyntoodii socoto aan soo dhigaya hadaba groupkay taala oo WhatsApp aan dhihine
YouTube ka taala hadda aan kula hadlayo haddii aad rabto maadooyinka oo dhameystiran oo ka wada shaqaysan fadlan waa fursadii la soo wadaag oo numberka iga soo qabo WhatsApp-ka kadib si aan ku siiyo faahfaahin inta ka dheeri ah marka waxaana inta dheer imtixaanka kaliya ma ahan in far qurxintada laga dhisi doono farta imtixaanka waa muhiim farta qorayso hadii isku darsan tahay imtixaankaaga calaamad su'aal saaran oo maxaa yeelay waxa qortay hadaan la akhrin karin dhibkeeda ay leedahay Soomaaliga sidoo kale Carabigina sidoo kale waan ku diyaar ayuu ku yahay iyo markaasi caawinaad kale aad u fara badan halkaan aan ku soo koobi karin videoga igu dheeraanayo insha Allah numberkan iga soo qabo haduu alla idmo si aan ku siiyo faahfaahin inta ka dheeri ah waa inagoo Al-Ustaad Yacqoob yore sida ay nabadgeliyo